kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhabka hadal qaybtan hadduu rabidmo waxaynu ku eegi doonaa dadkii ugu badnaa oo lagu xasuuqay gobolka Waleega ee dowlad deegaanka Oromada iyo haddaba yaa xasuuqay dadkaasi sidee ayuu soo dhacay xasuuqaasi waxay la eegi doonaa Guleed Alifle Guleed marka hore soo dhawow waxaad bal inoo faahfaahisaa sidee ayuu u dhacay xasuuqaasi waa mahadsantahay saaxiibka Hadraawi daawadayaasheena waan salaameynaa meel walba oo ay barnaamijyadeena ka daawadaan ay kalena socdaan intaasi kadib gobolka Waleega ee deegaanka Oromada oo asal ahaan ay degan yihiin dad amxaara ah laakiin ka tirsan gobolkaasi deegaanka Oromada waxa ka dhacay maalintii Jimcaha ahayd xasuuq bahalnimo ah oo aad looga argagaxay intii aragtay iyo intii ka warhaysayba xasuuqan waxa loo geystay oo uu ku dhacay dadka amxaarada oo qaybo badan oo kamidina ay muslimiin yihiin dadka Waleega galbeedkeeda dega waxaana la leeyahay muddooyinkii la soo dhaafay waa kii ugu badnaa oo xasuuq intaasi leeg ama dad intaasi leeg lagu dilo gobolkaasi tuulo lagu magacaabo Tole oo ka tirsan degmada Gimbi galbeedka Waleega deegaankaasi Oromada ayaa la sheegay in ilaa iyo 260 qof hal goob lagu dilay oo intii guryahooda loogu soo galay iyo deegaanada ay ku noolaayeen xasuuq aan kala sooc lahayn oo aan waxba la reebaynin ilmo yar islaan oday cidna aan la dhaafaynin saf balaaran laga galay oo dadkaasi sidaasi lagu xasuuqay dad goob joogayaal ah oo ka soo waramay dhacdadan iyo waxa ay indhahooda ku arkeen waxay ka sheekeynayaan wax argagax leh oo aad ku cabsi gelinaya ama aad uga dubaaxinayso xitaa bini'aadanimada ka baxsan ilaa iyo 260 qof san ku sheegay yaa lagu dilay meeshan dadka lagu xasuuqay qof ka tirsan dadkii ka soo haray kuwa la xasuuqay oo ka sheekeynayay sidii ay wax u dhaceen waxa uu leeyahay god yaan ku dhuuntay dad ku hadlaya luqadaha Oromada iyo Amxaariga oo hubeysan ayaana dadka ruux allaala iyo ruuxi ay arkaanba xasuuqayay oo dilayay anigu god baan ku dhuuntay biir oo aan ku jiray intii ay xasuuq u socday halkaasaana kaga qarsoomay waxay sheegeen dadka markii dambe meesha la tagay in meydadkii la soo arooriyay oo 60 qof 50 qof god loogu gurayay oo loogu aasayay xasuuqan bahalnimada ah ee ka dhacay deegaankaasi Waleega galbeedkeeda ee deegaanka Oromada waxa sidaan ku sheegaba lagu bartilmaameesaday dadka amxaarada laakiin xasuuqan xasuuq ba ka horeeyay qomiyadaha Itoobiya waxaad moodaa in ay kala argoosigu iyo isku maqnaanshaha isku maqan yihiin oo si tirabeelayo aad u fara badan tahay waxa ka horeeyay in dad Oromo ah la xasuuqay oo la laayay isla markaasina meydadkooda iyagoo dhowr maalmood yaala kadib uu la arkay dadkaasi waxa lagu xasuuqay aan idhaahday ciidanka deegaanka amxaarada ee Fano iyo ciidamada gaarka ee deegaankaasi amxaarada si public ah ahayd oo la wada ogaa oo cid kasta ay ogeyd warbaahintu ay tabinaysay xasuuqaas hore u dhacay ee amxaaradu ay geysatay ayaa haddana la filayaa kan inuu jawaab u yahay oo dhanka Oromada uu ka yimid marka intaasi laga yimaado ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya Dhamaka Mukanan oo deegaanka amxaarada ka soo jeeday markii dadkan Oromada ah lagu xasuuqay isla gobolkan ma uusan ka hadlin laakiin hadda afku furtay wuxuuna leeyahay xasuuqyada ka socda gobolka Waleega ma aha kuwa laga sii aamusnaan karo oo loo dul qaadan karo tallaabo sharciga waafaqsan ayaana ka qaadaynaa dadka falanqeynaya arrimaha siyaasadda Itoobiya iyo xiisadahan ka taaganna waxay leeyihiin kulaylka umba hadda soo gaaray ee markii Oromada la xasuuqayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya Dhamaka Mukanan ma uusan waqti u haynin in uu ka hadlo dadka xasuuqa ka badbaaday mid kamida waxa uu leeyahay isagoo ka hadlayay arintaasi meesha ka dhacday waxaan ku dhuuntay waa mid kale kii godka ku dhuuntay mooyee mid kale meel beer ah waxaanan arkayay ciidankan dadka xasuuqayay ee luqadaha Oromada iyo Amxaariga ku hadlayay oo kufsanaya qaar kamida gabdhaha isla markaasina si naxariis darra u direeya anigoo ku dhuumanaya beerta dhexdeeda marka waxa meesha ka dhacay Hadraawi waxa moodaa wax aad u foolxun oo dad masaakiin oo aan waxba galabsanin lagu beegsanayay waxayna muujinaysaa sida ay u sii fogaatay ama u sii kala durkayaan qowmiyadaha Itoobiya colaadina dhexdooda ay uga dhex tolan tahay oo uga dhex taagan tahay iyo argoosigu heer ku gaarsiisan yahay
waana arin walwalkeeda laho markii la fiiriyo dowladda iyo tabarteeda labadan qowmiyadood ah kuwii ugu badnaa Itoobiya oo daris ah gobolana wadaaga isla markaasina hadda colaadooda ay muddo soo jiitamaysay balaas in deegaanka Amxaarada oo markii hore ay dowladda dhexe isku xulufo ahaayeen gaar ahaan ciidankii Faano iyo dowladda dhexe iyaguna ay kala xarig furteen waxa moodaa in xaaladdu aad ay u tahay mid murugsan oo ay adag tahay bal xalkeeda siina fogaanayso sidoo kale Hadraawiyo waxaan rabaa inaan dul istaago waqooyiga Itoobiya oo ah meelaha xudunta oo ah xasaradahan ka taagan Itoobiya waqooyigeeda bal qaababka la isugu hayaan rabaa inaan wax yar aynu iftiimino galbeedka waqooyigan hadda goboladan Amxaarada iyo Tigreega iyo sidoo kale Gambeelaha iyo Oromada la isku hayo waxa isku haya galbeedka Itoobiya Benshangul Liberation Front iyo sidoo kale dadka xabashida ay qowmiyadda xabashida oo Faano iyaduna ay horboodayso iyo ciidankii dowladda saddexda dhinacba way ku dagaalamayaan qaybtan galbeedka koonfur galbeed iyagana waxa isku haya isla Gambeelaha iyo jabhadda Oromada iskaashanaya iyo ciidanka dowladda federaalka ee dalka Itoobiya meel walba waxaad moodaa in dabku uu ka holcayo oo la isku cayrsanayo halkii Gambeelaha caasimadooda Gambeela meel dhaweyto waa tii ay dagaaladu ka dhex socdeen oo jabhado hubeysan oo jabhadan Gambeelaha iyo Oromada intay gudaha u galeen ay dowladda dhexe kula dagaalamayeen marka xaalku waxaad moodaa inuu aad u culus yahay Hadraawi ayaa guuleed waa maasan tahay maamulka Oromada iyo dowladda dhexe waxay ku eedeeyeen ururka OLF ururkan muxuu kaga jawaabay eedeyntaas intayna jawaabta u gelin waxay maamulka deegaanka Oromadu oo madaxweyne Shamles uu hogaaminayo ay sheegeen in jabhadda Oromada ee Ola ay xasuuqan ka dhacay waleega ay geysatay isla markaasina dadka rayidka ay beegsanayso waxa uu yiri Ola waxay weerareen dadka rayidka markii ay u adkeysan waayeen howlgallada ay bilaabeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale ciidanka deegaanka Oromaduba ee lagu baacsanayo kooxdan Ola waa sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha deegaanka Oromada waxa uu leeyahay hadda kooxdani waxay u diga rogteen koox dadka rayidka ah weeraraya oo beegsanaya si ay ugu dhuntaan sidoo kale waana ku sheegay madaxweyne ra'iisul wasaare ku-xigeenka Dhamaka Mukanan isna waa ka eedeeyay yiri looma adkeysan karo xasuuqyada ka socda waleega talaabana ka qaadayna inta markii laga yimaado maamulka Oromadu iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen waxayna si adag u cambaareeyeen falka xasuuqa ee dadka shacabka lagu beegsaday waxayna sheegeen in iyagu bari ka yihiin iyagoo intaasina ku daray qoraalka ka soo baxay jabhadani Ola in ciidamada dowladda iyo dowladdu ay propaganda fidinaysa ah in jabhado ay leynayaan dadkani isla markaasina jabhaduhu aysan war u haynin arintaasi waxay sheegeen ka xisbi ahaan iyo ka jabhad ahaanba jabhadda Ola in aysan targetkeedu ahayn in dad rayid layso laakiin ay doonayaan xuquuqda kaga maqan dowladda dhexe iyo talasyada isaga dambeeyay dowladda dhexe ee dalka Itoobiya iyo madax banaanida gobolkooda Oromada iyagoo hoosta ka xariiqay in aysan haba yaraatee wax luga aysan ku lahayn arrimahaasi oo ay ka madax banaan yihiin marka waxaad moodaa in la isku tuurtuurayo oo dowladuna ay ku eedeynayso jabhaduna ay ku eedeynayso dowladda laakiin si rasmi ah ilaa haatan looma oga waxa kaliya la ogyahay waxa weeye in dad fara badan oo aan waxba galabsanin xasuuq wadareed aan loo kala reebin yar iyo weyn iyo oday iyo islaan ay ka dhaceen deegaankaasi Oromada gaar ahaan galbeedka gobolka Waleega ayaa guuleed markaan ka soo tagno xasuuqyadan iyo xasaradaha ka taagan guud ahaan dalka Itoobiya waa sidee xarunta looga taliyo Itoobiya ee magaalada Addis Ababa marka la Hadraawi aad ba mahadsan tahay xaaladda Addis Ababa iyadu way iska degan tahay oo calaadahan marka la fiiriyo laakiin culaysyada waa laga dareemayaa iyo dhibaatada dalka ka jirta iyo dhiigbaxa guud ahaan waa laga dareemayaa laakiin waxaan rabnaa inaan dul istaagno xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Itoobiya ayaa waxay doonayeen in ay hor dhigaan baarlamaanka Itoobiya xasuuqan ugu dambeeyay ee gobolka Waleega laga geystay xubnahaas waxay ka soo jeedaan deegaanka Amxaarada gaar ahaan waxay u badan yihiin xisbigan Eben markii ay damceen inay geeyaan ajandaha baarlamaanka
gudoonkii baarlamaanka iyo dadkii hawshan shaqada ku lahaa way ka diideen in arintan looga hadlo baarlamaanka maadaama meelo badan oo Itoobiya kamid ah lagu dhigbaxayo ay dad ku dhimanayaan waxna ayna kaga duwaneen amxaaraduna waxay rabeen in arintan ay buunbuuniyaan oo aad loo hadal hayo baarlamaankana ay geeyaan iyaga laftirkoodu way ogyihiin baarlamaanku inta laba hadda ku haboon uusan ka qaadi karin oo ciidamadii amniga meesha joogay yaa waxba ka qaban la laakiin waxa ujeedkoodu waxay ahayd in la geeyo oo arintan baarlamaanka lagaga doodo tiina waa laga diiday shir jaraa'id bay qabteen waxayna sheegeen inay ka baxeen kulankii baarlamaanka isla markaana ayna ka qayb galaynin inta uu sidaas yahay banaankeena uga baxeen dhammaan ama intii badneed ay yiraahdeen xildhibaanadii ka soo jeeday deegaanka amxaarada iyagoo ka cadhaysan dadkan lagu laayay deegaankan Oromada gaar ahaan galbeedka gobolka Walega hagaag daawadayaal guuleed alif aad ayuu mahadsan yahay qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh